nabaday daawadayaal ku soo dhawaada qaybtii labaad ee warbixintii kaga hadlaynay heshiiskii ugu yaabka badnaa dunida kaasoo ahaa sida uu Mareykanku ku iibsaday gobolka Alaska oo hore u lahaa dalka Ruushku. qaybtoona waxaynu ku soo ogaanay in dalka Mareykanku uu gobolka Alaska iibsaday. waxaa qasab ah in aynu isweydiino: 1. qiimaha lagu iibsaday. 2. sababta uu Ruushku gobolka u iibiyay. 3. faa'iidada Mareykanku ka helay gobolkan. jawaabaha su'aalahaas waxaynu kaga jawaabaynaa qaybta labaad uguna dambaysa taxanihii iibka Alaska. qiimaha ugu horreyn waxa uu Ruushku dhulka Alaska ku iibiyay lacag dhan $7,200,000 lacagtaas oo u dhiganta in Mareykanku 1.5 kiiloomitir oo kasta laga siiyay $8.5 oo keliya. sida hadda xeeldheerayaasha siyaasadda dhuleed ee adduunku qirayaana maanta waxa uu heshiiskaas faa'iido aan la qiyaasi karin u leeyahay dalka Mareykanka. muxuu Mareykanku ka faa'iiday gobolka Alaska 50 sano kadib markii uu Mareykanku iibsaday dhulkan oo ahayd markii ay bilowdeen sanadihii lagu magacaabi jiray xumadii dahabka oo ahayd intii u dhaxaysay 1896 ilaa 1899. waxa uu Mareykanku dahabka gobolkan laga soo saaro ka faa'iiday hanti ka badan $1 bilyan. waxaa kaloo kor u kacay dakhliga dowladda Mareykanku ka soo gala wax soo saarka gobolkan ee ay ka mid yihiin looxa, shidaalka oo laga soo saaro gobolka iyo kalluunka noociisa salamonka loo yaqaano. istaraatiijiyadda haddii aynu eegno dhinaca ammaanka, markii uu qarxay dagaalkii qaboobaa ee dagaalkii labaad ee adduunka kadib ka dhex qarxay midowda Soofiyeti iyo Mareykanka, gobolka Alaska waxa uu noqday hanti istaraatiijiyadeed aad u muhiim ah oo ay leeyihiin ciidamada Mareykanku. sababta uu Ruushku u iibiyay jasiiraddan. qarnigii 19aad waxaa dunida ka dhacay colaad siyaasadeed iyo dagaal diblomaasiyadeed oo u dhexeeyay labadii imbaradoriyadood ee Ruushka iyo Ingiriiska. waxay isku haysteen dalka Afghanistan iyo gobollada ku dhow ee bartamaha iyo koonfurta Aasiya. dagaalkan ay taariikhyahanadu ku naanaysaan ciyaartii weynayd waxaa si toos ah ama si dadban uga qayb galay dhammaan dowladihii adduunka itaal kastoo ay lahaayeen. xilligaas quwaddii Faransiisku waxa ay muddo ku mashquulsanayd raadadka ka dhashay dagaaladii uu hogaamiyihii Faransiiska ee Napoleon dalka geliyey oo dhammaaday sannadkii 1815. Ingiriiska oo lagu naanaysi jiray cududda aan la loodin ayaa adduunka calanka u siday, laakiin waxaa jiray dowlado loolan adag kula jiray oo inkastoo aanay la awood ahayn haddana ugu yaraan awoodi karayay inay cabsi geliyaan quwaddiisa. dowladaha Ingiriiska loolanka kula jiray waxaa ka mid ahaa boqortooyada Ruushka. arrinta xiisaha lehina waxa ay tahay in xiriir qaraabanimo oo weyni uu ka dhexeeyay labada qoys ee labada boqortooyo kala hogaaminayay. loolanka dhinaca Ingiriiska waxaa halbeeg u ahaa in boqortooyada Ruushka laga ilaaliyo in ay qabsato laba meelood oo muhiim ah, waa Hindiya iyo badweynta Mediterranean-ka. Hindiya oo marka laga hadlayo muhiimadda ay Ingiriiska u leedahay lagu naanaysi jiray baarka sare ee taashka Ingiriiska, waxay ahayd mustacbanada ugu muhiimsan uguna hodansan guud ahaan dhulkii uu gumaysan jiray Ingiriisku. waxay Hindiya soo saari jirtay noocyada kala duwan ee xawaashiyada oo markaa ahaa wax soo saarka dunida oo dhan ugu muhiimsan. sida oo kale waxay ahayd goob uu Ingiriisku ka qortay in ka badan 250,000 askartiisa ka mid ah. sidaas awgeed ma uu rabin in dowlad kale ay la wadaagto dalkan hodanka ah. waxaa kaloo Ingiriisku diidanaa in boqortooyada Ruushka oo xilligaa iyaduna isfidinaysay ay soo gaadho badda Mediterranean-ka. sidaas awgeed Ingiriisku waxa uu si cad u taageerayay dowladdii Cusmaaniyiinta oo dagaal kula jirtay Ruushka. inkastoo ay ahayd xilliyadii dambe ee ay dowladda Cusmaaniyiintu taagdaraysay. dowladda Cusmaaniyiintu waxay ahayd dowladda keliya ee xuduud toos ah la leh imbaradoriyadda Ruushka, waxaana ka dhexeeyay cadaawad dheer. Ingiriiskuna arrintaas ayaa uu ka faa'iidaysanayay. dagaalka qabo ee ciyaarta weyn loo bixiyey waxa uu socday 1 qarni. muddadaas oo dhan siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska waxa ay mudnaanta koowaad siinaysay ee Ruushka ay ka hor istaagto gaadhista labadaas meelood ee aynu soo xusnay. furinta dagaalka ee labada dhinac ku loolamayaana waxay ahayd dalka Afghanistan oo cidda qabsata ay khatar ku ahayd ammaanka Hindiya iyo guud ahaan qaaradda Aasiyada dhexe oo ay muslimiin badani degan yihiin. waana sababta ay Cusmaaniyiintu loolankaas ugu jirtay. sidaas awgeed cabsida uu Ruushku ka qabay Ingiriiska ka awood badiyey ama in dowladda Cusmaaniyiintu ay muquuniso ayaa horseeday inuu dhaqaale ka raadsado iibinta gobolka Alaska. isku dayga ka noqoshada dowladda Cusmaaniyiintu 1 sano ayaa ay kalideed la dagaalamaysay imbaradoriyadda Ruushka, laakiin ugu dambeyntii waxa uu dadaalkeeda siyaasadeed u suurtageliyay in Ingiriiska, Faransiiska iyo Talyaaniga ay safkeeda soo galaan oo ay ka garab dagaalamaan. waxaana dagaalkii ku dhammaaday jab weyn oo la gaarsiiyay imbaradoriyaddii Ruushka.
iyadoo ay tirakobyada qaar sheegayaan in khasaaraha dhimasho ee Ruushka gaadhay uu ka badan yahay 800 oo kun oo qof. daawadayaal waxay taasi noogu eeg qaybtii labaad uguna dambeysay ee taxanahaas Marjan Tube.